kulanti wacan daawadayaal kusoo dhawaada wararka dhacdooyinka caalamka wadaad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya hogaamiyaha guutada Al-Qassam oo ka tirsan Xamaas oo lagu dilay dalka Lubnaan. waxaa sidoo kale wararka dhacdooyinka caalamka ku daawan doontaan Mareykanka oo duqeymo bartilmaameed ka fuliyay dalka Yemen. qodobada kale ee wararka dhacdooyinka caalamka idinku soo gudbin doono waxaa ka mid noqonaya Israa'iil oo duqeysay xarumaha sirdoonka Xisbullah iyo digniino ay u dirtay dadka rayidka. qodobadaas wixii kale nagu soo kordho ayaa daawadayaal wararkeena dhacdooyinka caalamka ku daawan doontaan markana ku soo dhawaada iyagiyo intaasi ka faahfaahsan aynu ku bilaabno. Israa'iil ayaa weli duqeymo waxay ka wadaa deegaano kala duwan oo ku yaala dalka Lubnaan oo ay ku jiraan kuwa dhaca waqooyiga dalkaasi taasi oo keentay in bartilmaameedsado laba hogaamiye oo caan ka ahaa garabka hubeysan ee Xamaas. garabka hubeysan ee Al-Qassam ayaa u barordiiqaya hogaamiyihii guutada oo lagu magacaabi jiray Saciid Al-Tallah Cali iyo 3 xubnood oo qoyskiisa ahaa waxaana ka mid ah xaaskiisa sidoo kale 2 caruur uu dhalay kadib markii Israa'iil ku duqeysay guri uu degan yahay. Al-Qassam ayaa sheegtay in ay u argudi doonto hogaamiyaha la dilay sidoo kale mas'uuliyiintii hore loogu dilay dhaqdhaqaaqyadooda waxayna tilmaameen in ay ficil ay sameyn doonaan. ciidamada Israa'iil ayaa sidoo kale duulaan cusub waxay ku qaadeen deegaano ku yaala duleedka koonfureed ee magaalada Beirut kadib markii ay soo saareen amar cusub ay ku doonayaan in dadka rayidka ay ka guuraan dhismayaashooda ku yaala xaafadda Burji si ay ugu diyaar garoobaan beegsiga bartilmaameedka iyo sidoo kale fulinta weerarada ka dhanka ee Xisbullah. afayeen u hadlay ciidamada Israa'iil ayaa waxa uu bartiisa ku soo qoray digniin degdeg oo ka socota dadka agagaarka koonfurta gaar ahaan kuwa ku jira dhismayaasha la muujiyay khibradda waxa ayna ku yaalaan xaafadaha Burji. afayeenka ayaa waxa uu sheegay in dhismayaashaasi ay ku yaalaan meel u dhow xarunta Xisbullah halkaas oo ciidamada Israa'iil ay howlgallo ay ka fulin doonaan. wuxuu intaasi ku daray amniga iyo sidoo kale badbaadada xubnaha qoyska waa in si degdeg ugu guurtaa dhismayaasha iyo sidoo kale xarumaha dariska la aadna ka fogaataan masaafo dhan 50 mitir. xogayaha difaaca Mareykanka ayaa sheegay in Israa'iil ay awoodi doonin burburinta Xisbullah dagaalna uu sii socon doono una ka fulin doono dhanka sidoo kale waqooyiga ee dalka Lubnaan. isbitaalka weyn ee ku yaala halkaasi oo dhaca koonfurta Lubnaan ayaa waxaa weeraray Israa'iil iyadoona la sheegay in digniin laga bixiyay maamulka isbitaalka ayaana xaqiijiyay weerarka lala beegsaday waxa ayna ku baahiyeen baraha bulshada. Israa'iil waxay duqeymo bahalnimo ay ku garaacday isbitaalka Saalaxa ee ku yaala koonfurta waxaana ku dhaawacmay 9 qof oo isugu jira shaqaale caafimaad iyo sidoo kale kalkaaliyaal ayna soo gaareen dhaawacyo halis waxaana goobta laga saaray shaqaaladii waxyeelada soo gaartay kuwii kale iyagoo dadgureynaya ay qayb ka ahaayeen hay'adaha laanqeyrta cas ee Lubnaan iyo maamulka magaalada ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay isbitaalka. wakaalada wararka qaranka ee Lubnaan oo maamusho dowladda Lubnaan ayaa ku warantay in dhismaha isbitaalka lagu garaacay madaafiic ay leeyihiin Israa'iil. hay-adda Mareykanka oo ka shaqeysa arrimaha bini'aadanimada kana howlgasha Lubnaan ayaa sheegtay in 30% dadka dalkaasi ay noqdeen barakaca guud ahaan dalka Lubnaan ayaana lagu sheegay inay gaareen 5.5 milyan oo qof waxaana cabsi laga muujinayaa in ay sii yaraanayaan waxyaabaha aasaasiga ah nolosha bini'aadanimo. ugu dambeyn militariga Mareykanka ayaa sheegay inay duqeymo cirka ay ku garaaceen bartilmaameedyo ay Xuutiyiinta Yemen ku leeyihiin magaalooyinka Sanca iyo Xudeeda ee dalka Yemen. saraakiil u hadashay militariga Mareykanka ayaa waxay sheegeen in madaafiic ay ku garaaceen ilaa 5 xarumood oo waaweyn oo isugu jira qaybaha ku yaala kaydaha hubka sidoo kale saldhigyo militari iyo sanado ciidan oo ay leeyihiin kooxda Xuutiyiinta ee taageerada ka hela Iiraan. warbaahinta ayaa ku warantay in 7 gantaal ay ku dhaceen garoonka diyaaradaha magaalada Xudeeda oo ah magaalo istiraatiiji oo leh dekad weyn. waxaa kaloo ay sheegeen in 4 gantaal lagu dhuftay eriyada Siyaana ee magaalada caasimadda ee Sanca. meelaha kale oo ciidamada Mareykanka garaaceen ayaa waxaa ka mid ah gobolka
damar iyo sidoo kale gobolka kale ee lagu magacaabo Bayda oo dhanka koonfur kaga beegan magaalada Sanca. Weeraradaasi cirka ayaa yimid kadib maalmo markii Xuutiyiinta ay ku hanjabeen in ay sii wadi doonaan howlgallada militari ee ka dhanka Israa'iil wax yar kadib markii ay soo rideen diyaarad ku aanan duuliyaha lahayn oo ay leeyihiin Mareykanka oo kormaraya hawada dalka Yemen. Kooxdan ayaa toddobaadkii hore waxa ay sheegatay mas'uuliyadda weerarka lagu qaaday markab dagaal uu leeyahay Mareykanka oo maraya Badda Cas. Guud ahaan daawadayaal wararkii dhacdooyinka caalamka aad ku daawaneysay Rosheg News TV waanageenta warkankiisa xiga inta dib ka kulmi doono daawadayaal sidaas nabadgelyo aad ku mahadsantihiin daawashada wararka dhacdooyinka caalamka.